hasameen wax website adigo ogeyn 14 kan qodob ee soo socda. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملول ay joogtaan ku soo dhawaada channelka Ahmed Hub. Maanta waxaan rabaa inaan sharxo 14 qodob taasoo kor u qaadi doonto xirfadaada xagga website dhisida. Sidoo kale la yaab inay badbaadiso website-kaaga. Sidoo kale waxaan rajayn doonaa 14 kan qodob soo socda inaad meel ku qori doontid aadna xusuusnaan doonto insha Allah. Fadlan intaadan daawan muuqaalka waxaan ka codsanayaa YouTube channelka inaad subscribe gelisid sidoo kale aad la wadaagtid asxaabtaada. qodobka koowaad ayaa wuxuu yahay in aad lahaatid domain name oo wanaagsan. Domain name oo wanaagsan waxa loo jeedaa domain name oo la xasuusnaan karo. Domain name-ka waa magaca uu yeelanayo website-kaaga. Sidaa darteed domain name-ka waa inuu ahaadaa mid la xasuusnaan karo. Sidoo kale waa in ay iswaafaqaan website-kaaga xogta aad soo gelin doonto iyo domain name-kaaga. Sababtoo ah qofka dhan markuu ka raadinayo xagga search engine-iska sida Chrome-ka Miro markuu ka raadinayo qofkaasi waxaa suurtagal ah inuu si dhakhso ku helo. haddii magacaaga domain name-kaaga iyo xogta aad soo gelinayso website-kaaga aysan islahayn waxaa macquul ah raadinta website-kaaga inay adkaato. tusaale ahaan waxa ka hadlaysa haday yihiin waxbarasho domain name-ka waa inuu ahaado xagga waxbarashada. Sidoo kale hadaa ka hadlaysa xagga ganacsiga ama business-ka domain name-ka waa inuu ahaado ereyadiisa mid ganacsi ku saabsan. mar qodobka koowaad wuxuu noqonayaa inaad doorto domain name oo hagaagsan oo qurux badan. qodobka labaad ayaa wuxuu noqonayaa xagga hosting-ka. hosting-ka waa meesha lagu kaydinayo data ama xogtaada website-ka gelinaysay. marka waxaa jira shirkadooyin badan bixiya adeega hosting. marka waxaa muhiim ah inaad dooratid hosting wanaagsan taasoo la isku haleyn karo. sababtoo ah datadaada dhan ayaad ku aaminaysaa qofkaasi ama hosting-kaasi. marka waa inaad doorataa hosting wanaagsan. haddii aad doorato hosting aan isku haleyn karin waxa macquul ah datadii intaasan aad ururinaysa inay si dheel ama si fudud ay ku baxdo. marka taasna waxay jahwareer ku ridaysaa adiga iyo customer-kaaga. sidoo kale Soomaali gudaheeda waxaa jiro dad badan oo bixiya adeega hosting-ka. waxaa kamid ah shirkadaha Yoltage iyo shirkadooyin badan. marka muhiimadu waxay tahay wax walba aad dooratid in hosting-kaasi aad dooratay uu yahay mid la isku haleyn kara xogtaadin uusan ka lumin karin. qodobka saddexaad waa inaad ogaataa technology-ga aad isticmaalaysid. taas micnaheedu waxay tahay dadka waxay wax ku dhisaan qaab far badan. technology-ga la isticmaalo aad bay u kala duwan yihiin. kuwa qaar waxay isticmaalaan programming language oo loogu talagalay website-ka. laakiin maanta waxaa jira website-yada adduunka 30% technology loo isticmaalo lagu dhiso loo yaqaano WordPress. WordPress wuxuu soo koobay adeegii uu qaban lahaa xagga web designer-ka iyo web development-ka wuxuuna ka dhigay wixii dhan wax sahlan. oo micnaheedu waxay tahay drag and drop. sidoo kale WordPress kama baano inaad taqaano xagga coding-ka. marka wuxuu soo koobay ama fudud ka dhigay xagga dhisida website-ka. WordPress waxaad ku dhisi kartaa website kala duwan sida e-commerce, business iyo adeeg waxbarasho dhinac walba oo ku dhisi kartaa xagga WordPress-ka. marka waa inaad ogaataa technology-ga aad u isticmaalaysid website dhisidaada. qodobka afraad wuxuu noqonayaa ogaanshaha ama purpose-ka website-ka aad dhisaysid. taas micnaheedu waxay tahay website-ka aad dhisaysid ujeedadiisa ma waxay tahay xagga business-ka ama e-commerce-ga ama xagga educational-ka. taas waxay suurta gelinaysaa inaad ogaatid xirfadaha lagaaga baahan yahay inaad lahaatid. sababtoo ah website e-commerce markaad dhisaysid iyo website caadi markaad dhisaysid isma lahan. farqi weyn ayaa u dhexeeya. marka waa inaad ogaataa ujeedada iyo purpose-ka website-kaas aad u dhisaysid. marka ugu horeysana aad weydiisaa qofka website-kaas aad u dhisaysid waxyaalo uu u baahan yahay. ma xagga e-commerce uu u baahan yahay xagga business caadi uu u baahan yahay. marka ogaanshaha sababta ama purpose-ka website-kaas aad u dhisaysid waa muhiim. qodobka shanaad ayaa wuxuu yahay xagga layout and color. layout and color waxaan ula jeedaa website-kaaga design-ka uu yeelanayo xagga color-ka iyo layout-ka qaabka uu soo muuqdo waa cagaha uu ku tahay website-kaaga. layout-ka iyo color-ka waxay ka qayb qaataan soo jiidashada website-kaaga. website-kaaga hadduu yahay mid layout-kiisa ay diyaarsan tahay waxaa macquul ah dadka inay jeclaadaan sidoo kale website-kaaga ay ku xidhnaadaan mar waliba. marka website-kaaga waa inuu lahaado layout qurux badan oo soo jiidasho leh oo dadka aan dhibayn. qodobka lixaad ayaa wuxuu yahay waa sitemap. sitemap waxaan la jeedaa website-ka waa inuu leeyahay menu kala duwan kala baxsan. haddii sitemap-ka ay isku qasan yihiin waa macquul ah in website-kaaga lagu jahwareero. marka muhiimadu waxay tahay sitemap-ka website-ka uu yeelanayo inay yihiin kuwa kala baxsan dadkana ay fahmayaan meeshii waxan ay u socdaan. sidoo kale waxaa jira application badan loo isticmaalo dhisida sitemaps-ka. laakiin haddii book iyo qalan aad qaadatid sitemap nafsirka waa dhisi kartaa oo baahan wax application in aad isticmaashid. kaliya book iyo qalan hadaa qaadatid waa dhisi kartaa sitemap qurux badan. muhiimadu waxay tahay sitemap oo qurux badan qalbiga waa inuu kugu jiraa.
qodobka toddobaad ayaa wuxuu noqonayaa xagga contentiga ama xogta la soo gelinayo website-kaaga. Contentiga ama xogta website-ka aad soo gelinaysid waa inay ahaadaan dadka waxay ka filayaan. haddii contentiga ama xogta aad soo gelinaysid website-kaaga aysan is waafaqin magacaaga domain name-ka waxaa macquul ah dadkaasi in ay ka leexdaan ama traffic-da website-ka uu lahaa uu baaba'o sababtoo ah contentiga meesha aad soo gelisay maahan waxa dadka ka filaya. marka contentiga ama xogta aad soo gelinaysid waa inay tahay mid dadka ay ku qanacsan yihiin. marka waa inaad fiirisaa xogta iyo contentiga aad soo gelinaysid website-ka. qodobka 8 ayaa wuxuu noqonayaa xagga ogaanshaha audiences-kaaga ama dadka targetka kuwa adiga. haddaadan ogeyn targetkaaga ama dadka aad beegsanaysid waxaa macquul ah inaad ku jahwareertid contentiga ama contentiga aad abuuri doontid. muhiimadu waxay tahay dadka aad waxyaalan u gudbinaysid waa inaad ogaataa waxay rabaan ama waxay yihiin. marka ogaanshaha dadkaasi waxay ku suurta gelinaysaa in website-kaaga uu yeesho traffic fara badan xogtaadana ay gaarto the right people. marka muhiimadu waxay tahay waa in aad ogaataa audience-ga ama dadka waxa u gudbinaysid. qodobka 9 ee wuxuu noqonayaa xagga advertisement-ga ama xayeysiisyada. haddii website-kaaga ay ku badan yihiin xagga xayeysiinta waxaa macquul ah dadkaasi inay dhibsadaan xayeysiintaas fara badan. website-kaaga waa inaysan lahayn xayeysiin fara badan. badanaa waxaa jira dad badan oo bloggers maanta lacag ka sameeya xagga xayeysiinta laakiin muhiimadu waxay tahay traffic-da ama dadka aad soo jiidanaysid in aadan eryin. taas waxaa la jeedaa haddii website-kaaga ay ka buuxaan xayeysiin fara badan dadka marka waxaa ku dhiba in waxa ay ka rabeen xogta website-ka aad soo gelinaysid inay akhristaan ha noqoto qoraal ama video. waxaad kaan doontaa in dadkaasi xogta u imaadaan inay helaan sababta website-ka waxaa ka buuxisa xayeysiin. haddii aad bloggers tahay waa gooni. marka muhiimadu waxay tahay website-kaaga waa in aad ka yareysaa xagga xayeysiinta. qodobka 10 ayaa wuxuu noqonayaa xagga pop-up messages-ka. pop-up messages-ka waa message qofka markuu wax aqrisanayo soo booda kuwaasoo dadka ka careysiin karta. marka muhiimadu waxay tahay pop-up message-ka meelaha aad u isticmaalisid waa inaad ka wahaysaa. haddii anoo muuqaal daawanayo website-ka muuqaalka daawanaya ama qoraalka akhrisanaya haddii pop-up message ugu soo boodo ha noqoto email aan buuxinayo form aan buuxinayo oo email iyo xog aan gelinayo oo adiga u baahan tahay ha noqoto qaab kale. muhiimadu waxay tahay pop-up message-ka isticmaalkooda waa inaad ogaataa. adoo qoraal akhrisanaya ama muuqaal daawanaya haddii message aadan aqoonin meeshu ka imaado kuu soo baxo waxaa macquul ah inaad website-kaasi ku xanaaqdid oo dib dambe aadan ugu soo laaban. marka muhiimadu waxay tahay pop-up message-ka meelaha aad u isticmaalaysid waa in aad taqaanaa. qodobka 11 waa inuu leeyahay website-kaaga attractive design. attractive design waxaa la jeedaa design simple ah laakiin professional ah. taas waxay kor u qaadi doontaa xagga ku raaxaysashada iyo daawashada ama joogida website-kaaga. website-kaaga hadduu design-kiisu yahay mid soo jiidasho leh dadka way adag tahay inay ka tagaan sababtoo ah xogtii ay rabeen website-kaaga way ka heleen. sidoo kale website-kaaga maahan website advertisement ka buuxa. sidoo kale website-kaaga maahan xagga mid layout-ka iyo color-kiisa uu xun yahay. marka website-kaaga waa in uu lahaado attractive design simple but professional. qodobka 12 wuxuu yahay website-kaaga waa inuu lahaado buttons design-kooda ay qurux badan yihiin xagga sign up-ka iyo sign in-ka iyo submit-ka iyo register iyo buttonadaas waa inay lahaadaan design qurux badan. muhiimadu waxay tahay buttonadaas inay ahaadaan mid diyaarsan. sidoo kale kalarada iyo layout-ka buttonadaas la siinayo ay waafaqaan website-ka layout-kiisa. haddii website-kaaga buttonadiisa iyo layout-ka iyo color-ka aysan islahayn waxaa macquul ah xagga in aysan jirin design qurux badan. marka waa inaad ka taxadartaa xagga buttonska uu leeyahay website. qodobka 13 iyo 14 ay waxay yihiin background iyo image. website-ka background-giisa waa in uu noqdaa background soo jiidasho leh. background-ga website-kaas aad dooraysid waa inuu ahaadaa mid aan lumin xagga website content-ga. haddii aad dooratid background lumin kara xagga website visual-ka ama aragtida website-kaaga waxaa macquul ah website-ka design-kiisa inuusan ahayn mid wanaagsan. sidoo kale image-ka background-gaas uu yeelan karo waa inay ahaadaan image wanaagsan. waxaa jira website fara badan aad ka helaysid background iyo image wanaagsan. marka waa in aad si careful u doorataa background-ga image-ka website-ka uu yeelanayo. marka waxaan rajeynayaa in aad wax uun ka faa'iiday muuqaalka. sidoo kale ha ilowin in YouTube channel-kan aad subscribe gareysay sidoo kale aad la wadaagto saaxiibkaaga. wixii su'aal aragti qaybta comment-ga inoo dhiga mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan.